waxaynu madashan aynu joogno ku daafurana waa qorituurka horyaalada dalka markaan leeyahay qorituurka horyaalada dalka halka waxaynu ka furanaa saddexdii heer caasimada heer qaran naadiyadii 10 kooxood ee heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad waxaa iyana ku xigi doontaa madalo kale oo sidan oo kale oo gobolada laga wada fulin doono horyaaladoodii markaa runtii waxaan leeyahay tan waa tii ugu horeysay madalada kale iyo kale insha allahu tacaala sidan oo kale ayaa looga soo furi doonaa gobolada oo dhan intaa kadib runtii farxad gaar ay ii tahay in aan helo fursad intaa leeg oo runtii visionka xiriirka kubadda cagta runtii aan ku fulino waxayna ku suurtowday siyaasadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boostre oo runtii u dhabar adeegay challenge-ga adag ay yeelan karto in dalkan yeesho xidhiidh waxaan rabaa in yar inaan dul istaago ahmiyadda xidhiidhka kubadda cagta uu dalkan u yeelanayo in badan waxaynu idhaahnaa fahamka ciyaaraha laga haysto dowlad ahaan xukuumad ahaan ganacsi ahaan bulsho ahaan gebi ahaanba waxaynu u baahanahay hal garaafka ay maanta joogo inaan kor uga qaadno runtii waan aaminsanahay xidhiidhka kubadda cagta wuxuu u taagan yahay marka hore waa hay-ad madax bannaan oo 4 sanaba ku timaada hab doorasho oo dalka oo dhan ka qabsanta marka xigta waa awoodda fulinta siyaasadda ciyaaraha dalka waxay qorshaheedu yahay 2 hadaf mid waxa weeye koow inay fuliso siyaasadda horumarinta ciyaaraha dalka talabaadna waxa weeye inay raadiso xubinnimada ka mid noqoshaha Sikafa iyo FIFA haddaba xubinnimada raadinta Sikafa iyo FIFA maxay dalka u tarasaan runtii waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo dalka ka dhiman oo ugu horeyso in ictiraaf la helo waxaa u sabab noqon kartaa in xidhiidhada ama xidhiidhka kubadda cagta oo aniga gudoomiye ka ahay in uu helo faham oo dalku fahmaan marka ku xigtana la raadiyo wadadii loo mari lahaa runtii qodobkaas aad baan ugu dul taaganahay intaa kadib waxaa inoo qabsoomayaa horyaalkii oo aynu doonaynaa in insha allah bishan uu furmo kollay ku dhawaadistiisa iyo jadwalkaba dib ayaa laga sheegi doonaa balse aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan rabaa in aan si gaara ugu mahadnaqo xubnaha xidhiidhka kubadda cagta la doortay iyo howlwadeennada oo runtii had iyo habeen u dhabar adeegay in ay hawshan heerkaas soo gaadhsiiyaan welina u taagan inay fuliyaan